Waa salaam asxaabta. Waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtiin. Waa in ka mahadcelinaa saa idin garab istaagteen. Insha Allahu tacaala waxaan rajeynayaa qof walba muradkiisa ilaa inuu u sahlo. Waana ku mahadsantihiin. Sheekadeenii maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan iyo wiilka oo la noolaa eedadooda mar walba waxay ahayd mid gumaysataa laakiin waxaa ka maslaxi jiray aabahooda laakiin aabahooda waa uu dhintay markuu aabahooda dhintay xilka waxaa la wareegtay eedadii waxayna bilowday ilmihii inay ku shaqaysato ayna gumaysato mar walbana ay disho aflagaadiso maalin ayaa waxay wacatay nin tuug ah waxayna kala hadlaysay in si ay u qaadan doonto dhaxalka labadan ilmood ay disho nabadii ilmo markii ay maqlay aad ayay u cabsaday wiilkii ayaa ku dhahay naga saan ma joogi karno ee meesha aan ka tagno marka kale ayay waxay arkeen inay mashquulsan tahay telefoonka hadlaysa markaas ayay waxay bilaabay inay guriga ka soo cararaan ee u imaadaan adeerkooda ee u sheegaan eedadiisa ay noqotay eedadooda markii ay noqotay adeerkooda u sheegay waa ay ka murugooday markaas ayay wuxuu geeyay gurigiisa waxaana uu iibiyay dhar aad u qurux badan waxaana uu noqday sida aabahooda oo kale sheekadeena halkaas ayay ku dhamaatay fadlan haddii aad sheekada ka heshay subscribe saar like noo saar waan ku mahadsantihiin si aad noo garab istaagteen.